goobtii markii aan tagnay amaana gareynay isla markiiba waxaan ku soo aragnay falkii aan horay aan ugu soo aragnay digfeer oo dadkii dhibaataysnaa masaakiinta ku baabeen hubkii lamid ah qolfii lamid ah baawurkii inuu baawurkii yahay dadkii inay dadkii yihiin waxaana soo baxday baaris markii aan sameynay oo qobarada baarista oo CID-da aan si fiican dib ugu wadaagsan labada kiis inay hal qof ay geysteen inuu hal qori lagu geystay rasaasti fooqaqadii inay hal mid yihiin sida la og yahay xarun degmo waxay u shaqaysaa bulshada iyo dadka maamulka deegaanka qaraxaasi dadka ku dhintay waxay ahaayeen badankooda boqolkiiba 90 dadka ku dhintay waxay ahaayeen dad qaxootiya masaakiina degmada laga caawinay laga siinay raashinay reerkooda kula noqdaan dad soo qaxay deegaanadooda abaar ka soo rartay dadkaas dad ku geeriyo waxa kamid ah yani xarunta degmada dirbigeeda ku yeel dugsi quraan yani meel lagu barto diinta islaamka hadda waxay taagan tahay gabagabadii maxkamaddu intii ay maanta aragtay ayaa la hor keenay sidaa darteed eedaysanayaashu dembiga ay galeen waa kalsii kala culusyiin ninka la yidhaahda asad waa dilaa arxan daran oo aan naxariis lahayn hooyo iyo aabbe iyo carruur mid u aaba yeelay aan la arag dembiyada uu galay limit xad lagu qiyaasi kara lama arko sida uu maxkamadda horteeda ka qirtay sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta labada eedaysane oo ah in la toogto ay maxkamaddu inuu ku xukuntaan waa bilaahi tawfiiq raalli kama yihi oo ma jecli dhibaatadii qaraxa dhacaya laakiin qofti dhigtay ma la hayaa waayo qof Soomaaliya islaam oo saakir nabadgelyo soo kacay in gardaro lagu dilo ilaahay ma banayn sharcigu ma banayn anagu raalli kama noqon karno dhagaysiga dood sharciyeedkii u dhaxeeyay labada dhinac oo kala ah xeedaadinta ciidamada iyo qareennada oo la xiriirtay eed dhanka ah eedaysanayaal canshuur Cismaan Abuukar iyo Maxamed Cali Boorow intaas ayay ku dhan tahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto fadhiga maxkamaddana maanta intaas ayuu ku xiran yahay